قدومي فارحو waxaan ka codsanaa wiilkaas inaa ii soo deesid waxaan ka codsanaa ilmaha inaa ii soo noolaysid stationka Gurceel aad timaadid wiilkaas ay ii soo deesid waxaan ka codsanaa gad ajuuraanahay waxaan deganahay buushashka magacay waa maxamed beero buuxay ari soo day lacagta inta ka bixiyo qabiloodu xiran yahay wiil laba bilood hadda xiran yahay labadaas bilood oo uu xiray maxaa dareen dhibaato adduunka taalan dareen asaa noo shaqeyn jira haddana wax noo shaqeey macallimiyaab iga baabaa gaajo dhibaato xaafada qaada loo keenay anna alle ma shaqeysan kara qof xanuun sida bar ku taal meeqa jira ugu yar ilmaha nugtaan 6 bilood dhalna ugu yar aan la'aan waa daa 8 walaalahan waxaan ka codsanaynaa wiilkaas in la soo deeyo tobankaas kun oo doolar laga bixi ilmihiisii horteeda ay ku baaba'ayaan waxba uma qaban kari tani waa warbixinta aabihii 10 kun oo doolar jeelka loo dhigay laga soo bilaabo 2010 ilaa maanta oo la joogo dhamaadka 2023 waa muddo ku dhow 14 sano xiriir ah ka waran qoys danyar ah kana mid ah beelaha laga tirada badan yahay oo ilaa xilligaas qaan lagu lahaa balse markii ay iska bixi waayeen jeelka la dhigay aabihii reerka oo markiisii horeba xamaalata ahaa kaas oo maareynayay nolosha 7 caruur ah oo uu dhalay hooyadiisii iyo xaaskiisa oo xanuunka buro muddo ku taala la daaladhacaysa Cabdiraxmaan Xasan Cali muddo ayuu ku xiran yahay saldhigga booliiska degmada Gurceel ee gobolka Galguduud waxaana loo xiray lacag cadadkeedu yahay 10 kun oo doolar taas oo uu dacweystay nin uu hore dhaawac u gaarsiiyay muddahaatan laga joogo 14 sano oo xiriir ah ka waran haddii ilaa xilligii xabsiga loo taxaabay dhibane Cabdiraxmaan Xasan Cali caruurtiisu reeraha deriska ah hadba reer laga soo baryayo wixii dabka loo saari lahaa midda aan qaada waayay mahadhadan ay gu reebtay adigana kugu reebi doonta ayaa ah in xitaa ay maran tahay gasacadii caanaha ee laga quudinayay dhallaanka caruurta ugu yaree dhabta lagu hayo Qadiijo Ibraahim Xalane waa orida dhibane Cabdiraxmaan Xasan Cali oo lacag dhan 10 kun oo doolar ugu xiran saldhigga booliiska degmada Gurceel waxaana iyada hooyada dhibanaha iyo adeerka dhibanuhuba ay maamulka Galmudug maamulka degmada Gurceel bulshada reer Gurceel iyo bulshada Soomaaliyeed oo idil basin naxariis la kaga dalbanayaan in ay ka bixiyaan lacagta wiilkooda loo haysto sidoo kalena ay caruurtan dabka u soo shidaan anigoo ah Maxamed Cali wiilka adeerkiisa wax uma awoodo waxna uma hay ilmaha awoodaan u hay meeshan ay ku dhamaanayaan wax siin hay male ninkii uu soconay oo shaqeynay waa kaas waa xiran yahay 10 kun oo doolar ayuu u xiran yahay waxba ma haysan muslimiinta ummadana Maxamed intii ashaat waxaan ka codsanaynaa dal iyo dibad inta warkayna soo gaar waxaan ka codsanayaa inay soo caawiyaan 10 kun oo doolar ay naga bixiyaan maamulka Galmudug oo ugu horeeyay madaxweyne qoorqoor ugu horeeyay ilmahan dhibaataysan oo gaajeysan oo masaakiinta waxaan haysan waxba aan haysan annagana waxba aan wahayna waxaasina aan lahayn wiilka waalidkiisa nahay maamulka Gurceel qadoomiye Faarax ugu horeeyay ilaahay madaxiisa ha raajiyo muraadkiisa Allah u yeelo culowga Allah ka qabto waxaan ka codsanaa maamulka Gurceel waxaan ka codsanaa in wiilkaas ii soo deeyaan 10 kun oo doolar laga bixi dal iyo dibad ilmaha waa baaba'aya caano ma haystaan waxay haystaan male waxaan u awoodo male waxaan ku tar kara male anigu waa xanuunsanay qaxootaanahay waxaan ka codsanaa dhammaan dadweynaha ku nool Gurceel kullu macal dal iyo dibad wixii jooga waxaan ka codsanaa inay soo caawiyaan 10 kun oo doolar ay naga bixiyaan wiilkaas noo soo deey aan duceeyna Gurceel qof ku dhashay waxba dhaan Gurceel waxaan amaana deertii biyaha badneed weligeena adduunkan waa iskaga nooleen dad muslim oo toosan oo lagu dhex noolaado oo ilaahay asiyaqaana waa ku dhex nooleen waxba nooma dhiman waxba nooma yeelan walaalahan waxaan ka codsanaynaa wiilkaas in la soo deeyo 10 kun oo doolar laga bixi anagu xanuunsanahay waa ma shaqeyn kari waalidkiisaan ahay waxba uma awoodo waxba uma heli ilmihiisii horteeda ay ku baaba'ayaan waxba uma qaban kari waxaan codsanaa maamulka Gurceel سجل وعسنا وجهر قدومي فرح إلهي وحن كعبر إنه عدو إلهي كعقب وحن كعسنا الماء أنا يسون وليس استيشن كجرعل أتمادت ويلكاس يسود ديشت وحن كعسنا قد أجورانا أنا وحن دقنا بوششك قدومي فرحوا وحن كعسنا ويلكاس أنا يسود ديش
ilmahan ii soo nooleysay daba ilmoodan haystaa ninkii waa iga xiran yahay salli gurceel oo iga xiran yahay buushishka ajuuraanta ku dhibaataysanahay ilmihiinka u shaqeynaa waa xiran yahay meelaha wax aaga keena ma aqaani annagoo ay xanuunsan bahay buraa igu taala ciyaalada cunugta ugu yaratay caanaha waa iga caana laadahay 7 ilmood waaye aabood waa xiran yahay 10 kun oo door u xiran yahay intii muslim ummadda nabi maxamed meel ay joogtaba inay isoo caabisaan rabaa ninkana ii soo daaysa ilmahan ii soo nooleysa alle ma shaqaysan kara qof xanuunsan ahay oo burdo ku taala cunugta yar caanaheeda waa kana waa dhimaadeen meel laga keeno ma aqaan ilmahan dib uma shidi saaka ugu soo horeysa xaaraan ay ka tahay cunto loo kariyo maalin kasta xaafadaha looga soo qaadaa ummadda nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam inay soo caabisaan raba meel ay joogaanba dal iyo dibad fiidiyowga ninkii soo gaara ha isoo caawiyo ilmahan ha isoo noolay maamulka galmudug maamulka degmada Gurceel bulshadan Gurceel meel ay joogaan inay soo caawiyaan rabaa ninka ii soo daan 10 kun oo door iga xiran yahay ilmahan ii soo nooleeyaan ilmaha waa iga baaba'ahan alle asaa u shaqeyn jiray wuxuu ku nool ahaa maanta wuxuu soo shaqeey caaw ugu soo jir dabka haddana qof u shaqeey mal annama shaqeyn karo waxaan xanuunsanahay qof kasto muslim ah muuqaalkan soo gaara waxaan ka codsanaa inuu caawiyo iyana sheel gareeyo aan ka codsanaa qof kasto muslim ah oo muuqaalkayga arka lambarka laga soo caawinayo waa hormuud furaha 7 68 81 eber 6 furaha 7 68 81 eber 6 aniga xabiib farax ku soo leedaha aniga dhala ilmahan ayuu dhalanay wax ma haysta gisa nooga ugaarinayo oo meel walba nooga keenay nagu dharjin jira hadda waa baahana cudurna waa iska socda qannada socota gabka socoto wax kasta socoto waxaas loo haasto 10 kaas oo loo haasto kun dooro loo haasto ummadda nabi maxamed inaan u duceeyno ayuurtaana ay u duceeyso agna u duceey ducday aqbal waaye fadhan ku tukunaya marka waxaan la rabaa in soo hadam ah waxaana laga bixi waana nool soo day ummadda nabi maxamed Gurceel meel ay degan yihiin saasan ka codsanayna